dowladdii Cabdiraxmaan Tuur iyo dagaalkii Sufaloolka meel baanu idinkaga dhacnay madaxaya haddaan nahay baxaabo sheeg Soomaaliland oo iska giraacdo kuwii ku dhilay baanu ahayn haddaan hore loo oran maanta aanu idin raali ka ahaa de hadday doorasho noqoto habana wal isku markaa ayaa hadhin iyo Muuse Toone de dhinacina nayaga hadii la ka dhigo doorashada madaxweynaha 2 sano aanu kordhinay annana 5 sano aanu kordhasanay oo guurtidii Soomaaliland ka soo baxday لا يقبل شرعا ولا عقلا وما أقبل كرو ما هو على قبل كرو كلمية حزبك اللي يراه قلبك الصومالي الآن شعبك الصومالي الآن قلبك يسوي كبعي مصبيحي شعبك الصومالي الآن قلبك يسوي كبحوض ورشدا بس ينمايان مصبيحنا قلوب الصومالي الآن وكبحي كوتشرو وحانتبه قرحاتشيس وين وحن يرى قياس برع أو قرى إلا دوقات الدحاء Somaliland ganacsatada ugu badan waxa weeyaan waa garxaj weey Cergaabo Berbera Burco Hargeysa marka oo weynay laga tago salaxlay marka laga tago waxa weeyaan dabaqada dhexe boqolkiiba 80 waa garxajis doorashadu dhaqaale u baahan tahay dhaqaale musharruxu dhaqaale u baahan yahay la isla garab taago xisbigu dhaqaale u baahan yahay la isla garab taago soddon mehradood kama yara dabaqada dhexe marka la isku daro afarta gobol gobolada yaryar laga reebo 30,000 meheradood oo min isku celceliso $500 15 milyan deena meel dhigteen ina sheegtaan baanu doonayno waa tabaytaan 15 milyan baanu doorashadii u haynaa musharax quraan ku midaysanahay xisbi quraan waa ku midaysanahay oo hore waxyaabaha tabayay ka mid tahay waxyaabaha la masuurateen waa iska garanaya talaydu ma dhaafto garxaji soo isu yimi oo wax garadkiisa isu yimi tala dhaaf mayse laba qodob oo shirkan ka soo baxayna aad baan u baarigayaa labada qodob waxay tahay commissionku muddo kordhintii de uu sameeyay uu yiri muddadaas aan ku qaban karaynaa doorashada waa ayideen Allah haydi barakeeyo anana taasanu ayidsanahay ayaanu ayidsanahay doorashada madaxweynaha 2 sano aanu kordhinay annana 5 sano aanu kordhasanay oo guurtidii Soomaaliland ka soo baxday لا يقبل شرعا ولا عقلا وما أقبل كرو ما هو على قبل كرو هنا بيحنا دنتي سوى قورت دون دنتي ذي كايغتي وحكوا ماشا كتير مثلا Somaliland وهالكا كتير تام كتيرتو قدم كاريات بنودكو بارجنا وانا يدكوين قدم كلامات بعدين بدن بالقبائل يا تراهن واحد doorasho oo ka dhacay deegaanada garxajis ma jiro hadii la qaban waayo waqtiga commissionku uu yiri waa ku qaban karayna doorashada iyadana way ku ayidnayo Allah ilaahay waxaan islaahay hadii rag isu tagay oo aqliga ka shaqaysiiyay inta wax ka yar inta wax ka weyn oo qaadi karaysan inta aad tiraadeen wax ka weyn oo qaadi karaysan maanta ma jirto هذا هو إسكسوكو كوبايا وحكلي عن تبيي هل كانوا قاسوا الحكومة ما أنت نقاله نوجو ريدا وحشقيستان مويا نوحل ذكور ريدا يا مشران حسب كانوا تاجرسنا ومشرحانوا تاجرسنا هاي مروقينا مالكينا مسكح لك الحجز وينه هاي قرب تاكتو حسبك وضني يمل حوينها مستقبلك مشرح عبد الله الرهيس قرب تاجين تا يا كوسو بعيسى وحلو بهاي يقولي كستا أو هيروفران غير Somaliland قرحت سونا صور تاكتو واترى الدورة شانو دي كدورينا قبيل إيا شلب أو عددك وحويان
jilib salaaxataan oo waxa weeyaan dhaqaale ku bixisaan oo dadku walaalihiin oo waxba idinma diidane sidaas samaysaan baanu doonaynaa kulmiye xisbiga la yidhaahdaa qalbiga Somaliland shacabka Somaliland qalbigiisa uu ka baxay Muuse Biixi shacabka Somaliland qalbigiisa uu ka baxo doorasho dambe siin maayaan haddaydan idinku kadin Muuse Biixina qulubta Somaliland uu ka baxay kuma jiro wada qodobna laba qodob oo aan shirka ka qaato aad iyo aad muhiim weeye halkan waxa laga dhawaajiyay awal waa iscadeeyay garxajisna waxa uu doonayaa oo waa shirku qabtay oo go'aamo ka soo saaray anagu hadaan habar xabuusheednahay garxajis dawladii Cabdiraxmaan Tuur iyo dagaalkiisu faloolka meel baanu idinkaga dhacnay madaxaya hadaan nahay baxaabusheed Somaliland oo iska kin raacdo kuwii ku dhilay baanu ahayn hadaan hore loo oran maanta aanu idin raalli ka ahaa qodobka labaad maanta insha Allah waxaan naga heli doontaan taageero weyn waxa aan leeyahay beelaha habar xabuusheed innaga dadka u dhax awal Muuse Biixi inkasta oo waxa uu samaynayo aan reerka gobta loo tiirinaynin oo wax loo tiirin karayo aanay ahayn war haddana inaga awal iyo garxajis u dhaxahe ilma adeerayaal haddii nin garxajis hadlo ama nin xisbiga wadani ka mid hadlo nin habar wali hadli maayo bal miidiyaha eega 20 nin oo habar xabuusheed ba jawaabaya oo jawaabaya ninka garxajis وهيلوي دحال نما ما وحاس عدالتنا معها دحال نما معها وحنا هبر حبوشات لا يهي Muuse Biixi qoladii uu ku lahaa fartii dhexda ka qaniin doonta maalintii ugu horeysay waxda waynaga garxajisna kuma oran awal kuma oran fartii baynu dhexda ka qaniinsanahay waxa weeyaan nimanka hadayna waxba taraynin oo aynaan Muuse iyo dawladdiisa runta u sheegi karaynin ilma adeerayaal oo aan nabad gelin baan oran lahaa oo toliimadeena iyo deegaanimadeena iyo islaamnimadeena waxa ku wacan inayna wax taro oo aynu wixii wanaaga u sheegno oo waxa ka khaldan aynu toosino oo haday khaldan yihiin aynu qabanno bidixdeena iyo midigteena way Muuse iyo reerkiisu haduu khaldan yahayna waa kuwa hadlayo oo u taag waayo oo dhaga weyne iyo cali guray iyo inta miidiyaha ka qeylin waxay leeyihiin war jooji ilaahay ha u naxariistee shiikhii aan siira iyo عالم iyo siyaasi iyo culimo iyo wallahi inta way hadlayaan inagu maxaynu la aamusanahay aan bareeno hadda waa iyaga raacsanahay iskansiya dasideena aan nidhaano hadda doonaysan aamus kuma sax maaha godobta maalin walba garxajis laga galayaana sax maaha ragga miidiya ka qaylinayo ee habar jeclo ee u jawaabaya garxajisna sax maaha oo jawaabeen Muuse cid ha samaysto u jawaabta وأنا كو خساروني وين كو خساروني وين كو خساروني دور جديد وحنا كو سوق جبينا يا نما يهو وحيد كخلدا وين صحينا وين ولا صحينا قرعج سو وأنا يدين تاجر سنة هلو دي هذا دور عشان نقطة هذا أول سكونا كايا هارين يوم موسى تونة ده دين عنا نايا قاعد يلا كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته